إن حلبانا ولا سو استاغو مالين دويتو wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yiraahdo dhulka waxa lagu kala gadanayaa gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan madaxdii dalku saasay sameynayaan in nin xildhibaani arintaas la soo istaago oo magac xumeyn dalka oo sidaas ula soo istaago dalkana waxaan ognahay rag mas'uuliyiin oo lacag lagu soo siiyay oo dawladda kala lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magac dil sameeya biil ku qaat magac dilkana qaad sameeya biilna ku qaat waan ognahay taas taada ka bixin mudan xildhibaan dabcan waxa wasiirkii arrimaha dibadda hadda wararkan ka hadlaysa dowladda oo kale marka wuxuu sheegay in tallaabo uu qaaday ma laga yaabaa in sidii dowladdii hore oo kale lagu soo hujuumo arrimaha ka hadlay xildhibaane wuxuu sheegay wasiirku dabcan in xildhibaane ay jiraan tilmaamta uu bixinayay markaad eegtid adiga uu ka hadlayay dowladda ku dhalinaya dhulal iyo arrimahaas wuxuu daba dhigay hadalkiisa in tallaabo ay dowladdu qaadayso marka tallaabadaas maxay noqon kartaa bay kula tahay wallahi ma garanayo aniga waxa uu ka hadlay aniga ninkaan la hadlayo waa madaxweyne wasiir shaqaalaha warkiisa hadda nin ku jira ma ihi waxa aan la hadlayo meeshaan u istaagay inaan la hadlo waxa waaye nin xasan sheekh maxamuud ilaa dalka madaxweyne ka noqday oo aan meeshaan isla wada joogi jirnay oo aan isla rabi jirnay dalka doorasho heshiis ay ku yihiin in la qabto yaan waxaan ka hadlaya aniga ay tahay laakiin wasiir shaqaalaha iyo meel uu ka hadlay iyo wuxuu yiri hadeertaan nin falankeed hayay xildhibaanada aaki fulsoon kuma geyn golaha baarlamaanka aragtidooda ay ku qanacsan yihiin dowladdu waxa ay wado ay ku tageen hadda 10 xildhibaanaha hareerihiina taagan ma waxaad madaxweynaha ku eedeynaysaa inuu idinkaga adkaaday faqarayaashii siyaasadda aragti kala haysaan madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorasho ku fiican qabanaya lama joojinayo wax la barbar dhigi karo hal barbar dhig aragti la siman laakiin yaan la aadin cidna aqbali ma leeyahay marka ma 10 xildhibaan haddii adinka aragtidin ay qaateen xildhibaanadu ay fiirsan ku maasantahay iyaarkii waa maasantahay madaxweynahan waa loogu horeeyay waa la ansixiyadan wax dhibaato ma leh asagana meeshaan nala joogi jiro waxa la ansixay inay meel tagayeen sheegi jiro ogaa waa naga war badan yahay warkiisa tiro badan waa inii duuban yahay baarlamaanka wax laga ansixiyay iyo xildhibaano kulaanay kuraasteedii meeshaas ay taalahay madaxweynaha waa isaga soo codeynaya iyo guddoon baarlamaan oo jeeb ku jira runtii wax weyn oo macna ay siinayaan ma jirto meeshana waa sheegnay 120 xildhibaan madhama waxa joogay sida saxda waxa waa wariyaalaatiin soo tiriya xildhibaanada kooram inuu joogo dadka Soomaaliyeed xaq in ku leeyihiin baarlamaanka inuu kooram joogo in kale ina u sheegtiin xaq in ku leeyahay dhalinyarada ogaatiin waa ha in la yiraahdo ma 120 ansixiso kaamirooyinka meesha inay yaalaan waa inaad tirisaan ma dhantahay 170 xildhibaan meesha joogo waxay ahayd inaad dadka soo bandhigtaan ma laga dooday sharcigan say ku dhawr sayidina Abuubakar xataa khilaafadiisa la isku ma raacin saxaabada isku ma raacin say 170 xildhibaan aan midna u hadlayno midna u aamusin midna u doodin waxa sharci maaha shimbiriyo heesa la yiraahdaa guuloodeen waaye laakiin ayaan darada waxay tahay wax la soo arkay oo lagu jabay in jidkeedii la hayay anaga dib nagu ahba oo meesha lagu soo dhamaanaan aan ognahay meesha ay tahay marka xildhibaanada Jubbaland waxay soo saareen statement kuwa Puntland waxay soo saareen wala socotaan statement dowlad goboleedyadiina way diidan yihiin aniga xildhibaano kalena hadda soo saarayaan statement-iyo waa arki doontaa waxaan la isku hayo maaha number iyo heblow maaha waxaan ma shaqay karaan waay wax shaqay kara ma yihiin su'aasha meesha taas waa maasantiin annaga brandingka dalka inaan kor u qaadno ayaan oo magaca iyo karaamada dalka kor inaan u qaadno waxa ayaan daraa in nin xildhibaana oo la soo istaago maalin dhaweeto wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yiraahdo dhulka waxa lagu kala gadanayaa gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan madaxdii dalku saasay sameynayaan in nin xildhibaani arintaas la soo istaago oo magac xumeyn dalka oo sidaas ula soo istaago in la ismucaarado waa la yaqaan in wax qaldan oo xukuumadda iyo dowladdu wato dowladdan dee waaba aaminsan tahay maba ka mid ahanba afka hal is qabto cidna dhihi mayso wixii saxida balaad waa misna waa leeyihiin waana la sheegi karaa qofka muwaadinka laakiin sidaas cad loogu soo dhiirado waa ayaan darro weyn iyo garaad yari weyn
ayaan ku tilmaami karnaa inay arrintaasi ahayd xildhibaankaasna in tacbiirku uu ka qaldamay kuwa kaloo yidhaahda ciidamadii baa soo jabay ciidamada dhufaysyada ku jira oo shabaabkii 10 shabaab oo wada socoto guuraysa xardheer iska dhiibtay weeyga la soo dhaafay yaa qasbay ma waxaa qasbay pressure-ka lagu hayo ciidankii dul fadhiya weerar maalinkaas ku socda way adkaysan waayeen waa isu soo dhiibeen meel kastoo furin kastana saas isaga dhiibayaan nin baa soo istaagaya mas'uula dalkan wax ka raba oo leh ciidankii waa jabeen waa ayaan darro kale iyaduna marka waxaa moodaysaa wixii aan sheegaynaba inaysan noo cabirnayn dalkaanna waxaan ognahay rag mas-uuliyiina oo lacag lagu soo siiyey oo dowlado kale lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magac dil sameeya biil ku qaata magac dilkana sameeya biilna ku qaata waan ognahay taas waana la ogyahay wayna is yaqaanaan dadkaas inay dadka soo hor istaagaan ma ahayn oo weliba Soomaali inay wax u sheegaan ayagoo la ogyahay dawlad kale lacag inta soo siisay markaas saas leenahay aniga dadka ku leebal gareeya dadka meehi laakiin xaqiiqo la hayo weeye in inta wax la soo siiyo bil kasta u soo dhaco meeqaad sheegtay meeqaad dawladda dadka ceebays meeqaad dad wada socday kala firdhis meeqaad doorashada hor istaagtay doorashada dalka u socdo meeqaad hor istaagtay inta uu hadlo in leeg baa loo soo diraya waa ka shifayna maalinkeeda hadday xishoon waayaan bannaanka la soo dhigayaa waana la ka shifayaa anagu waxaan u joognaa brandinka anigu waligay waa mucaarada waa ahaan jira waxna waa sheegi jir dawladda 100 mowqif oo dawladdan ka horeysay intaasoo mowqif oo ay qaateen oo dalka ka qaateen oo garab istaagay baa jira intaasoo shuruuc oo ay keeneen golaha baarlamaanka oo sharciga batrool ka mid ah oo aan hor kacnay oo niri dalka horumarkiisa ku jire hal laga horwareey kii doorashooyinka ka mid ah horey hal loogu socdo dalku qof iyo cod ha noqdo waxa ka mid ahaa dawladaha khaliidka markii go'aamada la qaatay oo dawladdeenu ay maaragtay mowqif ayday mowqifkii maana dhihin waa kala aragti duwantiina mowqifkii waan la qaadanay ku difaacnay waa inay kala socnaadaan marka waxyaalaha xukunka lagu kala ridanayo iyo dalka sumcadilkiisa inay kala socnaadaan dalkan waa la wada leeyahay beri waa kursi u socota laakiin waxaan ognahay qaarkood inay kursi u soconay loona sheegay dawladaha ay u shaqeynayaan ay u sheegeen kursi ku geyn mayno laakiin intaana ku ogolnaa sandureertadaana ku ogolnaa qaado kursiga hebel iyo hebel baan u wadnaa marka arrintaas runtii dee annagu waxaan u joognaa dalkan brandingkiisa inaan dhisno brandingkiisa qofkii dilayana waa ka celinaynaa loo aamusi mayo oo lama dhahayo saas iyo saas waay